kulanti wanaagsan daawadayaal toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena hobalka caanka ah yaasiin axmed ibraahim digfeer waxa uu ku dhashay deegaanka Qoraxay oo ka tirsan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida xilli taariikhdu ku beegnayd 1948 yaasiin wareegay magaalada Muqdisho oo noqotay bartii fanka ama aasaaskiisii koowaad ee fanka ka bilaabo magaalada Muqdisho oo fankiisu ku taaba qaaday yaasiin axmed ibraahim digfeer waxa uu caan ku noqday ama naanaystiisu ay noqotay digfeer waa mid ka mid ah heesaha uu qaado yaasiin axmed waa heesta tiraahda digfeer aawada galay heestaasi oo ku jirtay riwaayadii ugub jacayl iyo afkala qaad ee soo baxday 1973 riwaayadaasi ay heestaasi ka mid ahayd yaasiin heestaasi ayuu naanaystan digfeer kula baxay digfeer waa dhakhtar ku yaala magaalada Muqdisho haatanna loo yaqaano dhakhtarka Ordogan ama dhakhtarka Turkida sidaasi ayaa naanaysta digfeer ay ku soo baxday yaasiin fanaanun maahay waa la xamayste heesaha la xameeya sidoo kale waabwaan mararka qaarkood isagoo erayada samaysan jiray ayuu ahaa digfeer baaska jacayle jigiyo nasiib laay barwaaqada ka carara abartana u baydhay khayrka balowka jacayle digfeer heesaha u qaadayay heeso waxay haayeen aad u xiiso badan ilaa maanta oo qarnigii 21aad ay tahay heesaha digfeer ma duugoobayaan waayo waa heeso dareen jacayl ka hadlaya ama waa heeso dareen taabada qof jacayl looga baxay qof la lugooyey qof la khiyaameeyey qof qalbigiisa la dhaawacay dhammaantood heesuhu sidaasi markaasi u dhigan yihiin haddaba heesahaas yaa alifay yaa sameeyey qisooyinkoodu ma dhabbaa su'aalo badan ayay dadku iska weydiiyaan daawade heesaha badankood waxa sameeyey abwaankii la oran jiray nuur cali jiis nuur waxa uu ahaa guddoomiyihii maxkamadda ciidamada ee gobolka Hiiraan nuur gabadh uu qabay ayuu aad u jeclaa gabadhaasi ayuu heesahan fariin ama uu jawaab uga dhigi jiray isagoo heesahan u dhiibi jiray fanaankan caanka ah yaasiin axmed ibraahim digfeer yaasiin isaga qudhiisa waxa jiray heeso uu sameeyey isaga qudhiisu abuuray oo kaga waramayay noloshiisa markaasi gaarka ah ama heeso jacayl oo isaga qudhiisu gabadhiisa uu sameeyey heesaha digfeer sameeyey waxaa ka mid ah heesta tiraahda haddii geel la kala dhaco waa hees garnaqsiya heesta digfeer waxa uu ugu garnaqsanayaa markaad dhuuxdo erayadeeda ama aad dhageysato ama dadka taariikhda fanka yaqaana waxay sheegaan digfeer in gabadh uu doontay markaasi hayb ahaan loogu diiday dabadeed heestaasuu ku garnaqsaday oo uu sameeyey laakiin taariikh yaro gooban ayaynu ka warannay digfeer waxa uu dhalay 14 caruura haatan waxaa nool 10 caruura digfeer waxa uu ku dhintay magaalada Hargeysa sanadku markuu ahaa 2002 Allah u naxariisto isaga iyo intii kale dhimatayba nabad daawadayaal